بسم الله ربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دو أرديدنا قيمة بدن له كورسدني وادبرس كومبليت كورس. إن شاء الله تعالى شركنا مانتي وحان كقادن دونا an introduction to WordPress. هردع كسابسن WordPress أيان بران دونا. maadaama aan baranayno koorsada WordPress waxaan rabnaa marka ugu horeysa inaan ka jawaabno ama aan isweydiino su'aal ah waa maxay WordPress. WordPress waa content managementiga adduunka looga isticmaal badan yahay waaye marka laga hadlayo dhisida website-yada. haddii ay tahay marka website-yada lagu dhiso iyo haddii ay tahay marka website-yada aad ku samayn karto ama lagu sameeyo WordPress waa content managementiga ugu weyn adduunka. waxaa la sheegaa website-yada tiradooda waan arki doonaa sanadka 2023 aanu soo dhaafnay inta website lagu isticmaalay WordPress, balse percentage ahaan marka laga hadlayo WordPress 45% iyo weliba tiro zaid ah ayaa waxaa lagu sheegaa website-yada adduunka oo dhan marka laga hadlayo 45% iyo tiro ka badan waxaa lagu dhisaa WordPress ayaa lagu dhisaa. marka WordPress marka maahan mid oo marka la dhaliilsan karo ama awoodiisa ay yar tahay maahan. marka sida la ajligeed ayaan waxaan rabnaa casharkeena ugu hore ee maanta introduction to WordPress inaan wax yar aan ka hadalno oo aan taabano WordPress iyo waxa uu yahay. waxaan joognaa hadda halkan wordpress.org ayaanu joognaa ama wordpress.org ayaanu joognaa. marka halkan haddii aan socno boggaani hore waxaad u jeedaa in lagu leeyahay marka design build and extend in lagu leeyahay aad u jeedaa marka inaad marka adigu designkaaga aad samaysan karto create any website with flexible design tools and the power of blocks. waxaa lagu leeyahay marka samayso website oo flexible ah marka sida adigu aad rabto aad ka dhigan karto samayso ayaa lagu leeyahay. marka sidoo kale qaybtani waa try the blog editor ee lagu leeyahay waxyaaba aad ku dhisayso website-kaagi blogiska ah marka sida ay u shaqeynayaan marka tijaabiya lagu leeyahay marka oo fiiri. sidoo kale waxyaabaha website-ka lagu dhiso waxaa kamid ah marka plugins ayaa kamid ah. sidoo kale pluginska halkan ayaad ayaguna aad kala socon karta oo waxaa lagu leeyahay make your site do whatever you need it to. waxaa lagu leeyahay marka website-kaaga ku samee wax alaale wixii adiga aad jeceshahay aad rabto inaad ku samaysato. haddii aan hoos u soo socno halkan waxaa lagu leeyahay discover WordPress 6.5 ayaanu ku jirnaa hadda, balse waan arki doonaa historygiisa iyo meesha uu kusoo bilaabaday ama meesha uu kasoo bilaabaday waan arki doonaa WordPress. halkan haddii aan socno waxaa lagu leeyahay one platform a universe of possibilities. marka discover a collection of website examples from around the world. website-yada ama shirkadaha isticmaala WordPress marka shirkadahan ayaa kamid ah Time ayaa kamid ah, NASA ayaa kamid ah, Microsoft ayaa kamid ah, sidoo kale TED ayaa kamid ah, Hard University ayaa kamid ah. sidoo kale halkan waxaad dhihi kartaa explore the showcase ayaa dhihi kartaa oo waan arki doonaa iyaduna. sidoo kale marka waxyaabahani oo idil ayaad ku samayn kartaa ayaa lagu leeyahay WordPress. marka waxyaabahani oo idil ayaad ku samayn kartaa. halkan waxaa lagu leeyahay meet the WordPress community ayaa lagu leeyahay marka community ayaa WordPress waxa xukuma ayaa waxay tahay marka oo ka dambeeya oo sidaan u sameeyay waxay tahay marka waa community based way. marka maahan wax hal qof ama shakhsi ama shirkad gooni ah ay leedahay maahan. marka sababtoo ah marka waa community share based way. marka oo aanu la jeedno koodadkeeda iyo waxyaabahaasi oo dhan waxaa qora oo diyaariya marka kumanaan oo developers isku tagay ayaa sameeya. marka sababtoo ah WordPress waa completely free waayaan marka inaad isticmaasho. sababtoo ah haddii shirkad ay ahaan lahayd marka lacag ayaad ku bixin lahayd inaad isticmaasho WordPress. marka sidaa darteed marka WordPress waa completely free waaya. marka sidoo kale haddii aan hoos u socno wax yar marka waxaad u jeedaa WordPress version 6.5 Regina ayaa lagu magacaabo qofkaani ayaa lagu leeyahay. waxaa la soo saaray April 2 2024. marka
waxyaabahan ayaa ka mid ah marka WordPress asiga uu leeyahay, balse haddii aan imaano qaybtani about ah oo aan dhahno halkan waxaad u jeedaa about WordPress Enterprise ayaad arkaysaa, sidoo kale waxaad arkaysaa marka Gutenberg ayaad arkaysaa, waxyaabahaasi oo dhan ayaa halkani ku jira marka Gutenberg iyo waxa uu yahay marka blog editorkaasi waan arki doonaa casharadeena soo socda ayaan ku baran doonaa insha Allah taala. Marka haddii aan dhahno marka about WordPress aan dhahno qaybtani aan ku dhufano about WordPress marka dhahdo kadib waxa lagu leeyahay publishing. Haddii aad rabto waxyaabaha aad u isticmaali karto waxaa ka mid ah publishing ayaa ka mid ah, our history ayaa lagu leeyahay, our mission halkani ka akhriso ayaa lagu leeyahay missionkeena, sidoo kale the four freedoms halkani ayaguna ku jiraan. Halkani haddii aan imaano qaybtani ugu hooseysa halkan waxaad arkaysaa marka waxyaabo fara badan ayaa ku jira halkani ayaguna people of WordPress ayaad u jeedaa, statistics ayaad u jeedaa, privacy policy-gooda, license, waxyaabahaas ayaad arkaysaa. qaybtani requirements ayaad arkaysaa, featureska uu leeyahay, security-ga, roadmap-ka waxa uu yahay marka haddii aan ku dhufano roadmap-ku waa waxyaabaha marka ay rabaan oo soo socda mustaqbalka inay sameeyaan ay rabaan weeyaan. marka waxaad u jeedaa roadmap-koodii waxa uu ahaa 2024 release ah inay marka ay soo saarayaan version 6.6 inay soo saarayaan July 2024, sidoo kale version 6.7 November 2024 inay soo saari rabaan ayaad u jeedaa. long term roadmap haddii aad hadana halkan ayaad kala socon kartaa mustaqbalka fog waxa ay rabaan inay soo saaraan. Marka qaybtani haddii aan dhahno marka back aan dhahno kadib halkan history aan imaano ayaduna aan fiirino history aan leenahay. history markaan dhahno kadib halkan waxaad u jeedaa sidoo kale waxyaabaha WordPress xilligii ugu horeysay ee la soo saaray ilaa iyo maanta aanu joogno versionkiisa version 6.5ka. halkan waxaad u jeedaa 1.0 ayuu ka soo bilaabmay marka January 3 2004 Miles Diving ayaa lagu magacaabay marka xilligaasi versionkaasi. version walba wuxuu leeyahay marka qof ay ugu magac daraan oo marka gaaladaasi ka mid ah kuwa heesaha sameeya iyo waxyaabahaasi marka waxaad u jeedaa ilaa iyo aad ka soo gaarto marka halkani ugu dambeysa oo versionka hadda aan isticmaalayno version 6.5 oo Regina Carter lagu magacaabo April 2024 la soo saaray ayaad arkaysaa. musicians waaye magacyadan halkan ku qoran versionka iyo musicianka weeye qofka musicianka magaciisa date-ka la soo saaray halkan u jeedaa marka qofba marka waxa asiga uu jecel yahay ayaa marka waxyaabo asiga uu rabo marka uu ka dhigtaa maadaama ay gaaleeyihiin marka ay waxyaabahaasi ay danaynayaan sidaas ay marka ay ugu samaysteen. marka insha Allah taala WordPress hal xis ama hal cashar iyo laguma soo koobi karo. waxaan rajaynayaa marka inaan casharo kale aan cutubkaani aan uga hadli doono insha Allah taala. waxaan rajaynayaa casharkeena koowaad maantay marka inaan isla fahnay. waxaan idin leeyahay soo dhawaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh.